hanto shirgudoonka golaha wakiilada inuu xisbiga kulmiya hanto ayuu xisbigu tartan ugu jiraa ragga uu ka doonayana waa ragga halkan fadhiya iyo kuwii galbeedka yay inaga noqon hadhowto reero isu gurguura xisbi isu gurguura ha noqdo waxaan waliba leeyahay aan caawa ka badheeraya gudoomiyaha iyo ku-xigeenada xisbiguba waa inay gobolada bari noqdaan dambi maaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiiba waa galbeed waxba inoo diidi maayaan gudoomiyaha de xisbigu nin halka fadhiyo Yaasin Faratool uu wataa ku-xigeenadu labada ku-xigeenada idinkeeda ka soo bixi doonaan inteena bariga waa inoo ballan shirgudoonku inaanu ina dhaafin reer bari hadaynu nahay oo hadda kulmiyaan ka hadlayaan uu reer bari oo ka hadlimayo cidna ka hadlimayo wadanina ka hadlimayo uma shirgudoonka way ina wala tartamayaan waa inaynu ka qaadnaa inagoo dhaqankeena waafajinayna iyo iswaafajinayna xisbiga gudoomiyaha iyo labada ku-xigeenba anigu waxaan idinkula dardaarmayana ku tala gashaan inay noqdaan reer bari saddexduba waxaan kaloo idinkula dardaarmaya golayaasha deegaanka maayarada magaalooyinka saddexda magaalo ee hadda halkan fadhiyana inay noqdaan xisbiga kulmiye waan hadhow la isu gurguurin waqtigu waxba ina baray duruuftu waxba ina bartay waa golihii deegaankee saddexaad afraad buu imika noqonayaa kani saddexaad iyo golihii baarlamaankee labaad buu noqonayaa ee doorasho ku yimaada inta doorasho ku timi waxa la bartay oo aynu naqaanaa oo ilaa 2002 aan garanaya 2012 aan garanaya tan imikana malaa ka soo socota de haddaan ilaahay inaga ubad barakaysan inaga dhigin intayna imika sharracan mar allaaliyo marka la soo baxo in la isu guuroolayo reer hebel halkaas uu ka saara maayarkuna iyo ina dhaafay ku-xigeenkana kaynu doonayno aynu siino maanta tii waxaan leeyahay kulmiyo maayaradu iyo ina dhaafin inagoo kulmiya deegaanku doonaba ha noqdo ku-xigeenkuna iyo ina dhaafin xogaasho ilaa xisbiyeegu ma hooyna dhaaf ma inaga iska dawladda magacawday dawladda waxa magacawday waxaan ku idinku adkaynaya ilmada reeyaan hal ku dhigyada la isticmaalayo yaanay noqon hal ku dhigyo negative kuwa mucaaradka ay noqon hal ku dhigyada la isticmaalayo meelo horena waan ka yidhi isbedel baan keenaya iyo waa kelmadaha mucaaradku isticmaalayo حزب الحاكم وحل هذا وحن أتكيننا حزب الحاكم كسياسة قصعده بعد اللي بهيننا أتكينه وما بهيننا نروح حزب الحاكم كانوا يسبدل كل سمايننا إنك أفكرنا معها وأفكر حزب المعارض كا حزب سياسة بوليه برنامج سياسة بوليه حير بوليه شرع بوليه إنه كاسين وهرج لنا دقن كلينا وحل إذا كربا إن تان حكومة وحن كويل علينا دستور كقرن كأي حير كحزبك أيان كويل علينا لكن isbedel baanu keenaynaa iyo waxaanu sameeynaa reform baanu sameeynaa maaha wax la inooga baahan yahay inuu ku campaign garayno yaanu ku sameeynaa dawaa xukuumadeennii waa xisbigeennii reform isbedel ku sameeynaa halkeen ka keenay maxaynu wajeednaa maxaynu ku bedelaynaa dii hadda wax inaga khaldan yahay inuu imika isu sheegnaa inagu waynu isu saxnaa waxaan kaga baxayaa insha Allah guul baan idin rajaynayaa waynu guulaysan doonaa waa xisbigeennii haddaynu inta soo baxdana waa xisbigiisii inta hadhee kaydka u noqotana waa xisbigoodii kelmaddan ku celinaya waa kelmaddii maxamed cali hadda uu lahaa yaynu guurguurin qofka hadduu guurguuro karaamadii ka dhimatay maalinba xisbi lagu sheego uu cusub uu naqraacaynu iska ilaalino